شرحبنا أبدنا هايو هرو مرانكو همنا أهوغامنا هذه شرحبنا وان هقاتنا ما هقرني وانو حولك الله مرتدان هرنات كلام كان تابدناي xidigaygu toosnaa inkastoon taraaroon ka tallaabay xeerkii adduunyada u taagnaa. toddobaadkana dhegeystayaal barnaamijkeena fanka iyo suugaanta waxaanad ku hayaa taariikhda iyo nolosha mid ka mid a fanaaniintii caanka ahayd ee kooxdii waaberi. fanaanadan oo ah Trig Xaashi Kaahin waxay ka mid tahay fanaaniinta reer Somaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa. waa fanaanad caan ah oo saaxadda fanka iyo suugaanta ku jirtay muddo ka badan 40 sanadood isla markaana intiina badanaa ka maqashaan heesaheeda radio Hargeysa. haddaba waraysi dheer oo aan la yeeshay Trig Xaashi Kaahin ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey halkii ay ku dhalatay. magaalada Hargeysa fankana waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa. ayaad ka bilowday hadda halkii aad ku soo barbartay xageebaheed? waxaan ku soo barbaaray magaaladan Hargeysa mooyaane wali halkan baan ku dhashay kuna barbaaray Hargeysa. fankana waxaan ka bilaabay Hargeysa. fankana waxaan galay 27kii. qoysidii ah baad ka dhalatay Triga? qoysiska caadi noloshiisa caadi dood baqadalxa. waa hagaag imsa carada dhalada? waxaan la dhashay 4 markii anigu aan garaadaystay. 4 baa jiray. 4tii 2 way dhinteen. 2 baan ku noolay inaan noolimaka. waa hagaag markaad yarayd eed caruurta ahayd dhalinyaranimad maxaad jeclayd? heesa inaan heeso ciyaarahan ciyaari jiray. ciyaaraha intii dhaqanka? waan ciyaar gudi jiray leeylay. ciyaara meel kastoo ciyaar ka baxayso daan kasta ka baxayso inta jiray. marka ma Hargeysa laftiga laga ciyaar gudi? lafteeda laga ciyaar gudi jiray. waa tamaan dareyso. waxa la tagi jiray daan walba laga ciyaari jiray. marka xageed soo ciyaar gudi jirtay? waxaan ka soo ciyaar gudi jiray buurta maaragtay marka joogto in xaafadan iftin buurteere halkaas sare ee in imika la yidhaaho October halkaasaan kasoo ciyaar gudi jirnay. waxaan qaban jirnay daami. waxaanu qaban jirnay in isoo garo halkan in qurac dheer oo iskuulka sidiisa laga ciyaari jiray. meelahaas meeshii adigu meeshii ciyaar ka baxaysaba waan tagi jirnay. waan ciyaar gudi jiray. marka ciyaaraha ciyaar dhaqameedka ciyaari jirteen maxay ahaayeen? botorka ergaabada waxaas ma ciyaari jirnay. iyagoo ku fiicnaado botorka. ergaabada ka waran walaa in kasta ka adagtay ergaabada way ka adagtay ma garanaysaa laakiin waan ciyaari jirnay oday in la oran jiray ayaa halkan imika Soomaad arag la yiraaho Axmed Gurey wada banaan bay ahayd. tooxay halkan laagtan weyn Soomaad arag imika la digdig leeyahay dhulkaas oo dhan wuu iska banaana garoonkaas lagu ciyaari jiray ergaabada ku ciyaari jiray. anana waan u tagi jirnay waa ergaabadana waan la ciyaari jirnay. jandeertan waan la ciyaari jirnay. botorka waan la ciyaari jirnay. mid walba ciyaari jirnay. markaas sidaasaan fanka ku soo galo ciyaarahaasaan iska jeclaa. dhalinyaradii xilligaasi aad wada ciyaar gudi jirteen qaarkood ma noqdeen fanaaniin? waxa heesaa noqday qalin leh. qalin leh wada ciyaari jirnay. heesaa boosna noqdayo waa kii fanaanka weynaha ilaahay u naxariistay. darmanta jalay hedwa ku diraya degmada ku gaarsiin walagu dabaaldegi durbana lagu tumiye. xilligii aad yarayd heesaha maxaad jeclayd? heesaha jeclayd? heesaa Sahra Axmed iyo Magool iyo ayaan jeclaa. ma garanaysaa maandeeq iyo heesaha qaadaan ayaan jeclaayo. tii ugu horreysay xafido xafido heesi Magool heeskan ay tiraa maaragtay heeskan darandoorige iyadii ay wada qaadaan Maxamed Axmed iyo ayaan jeclaan qaadi jiray kowdii marka inay hawdu shaadaamay
ها إنا يودش هذا اللي مريي ملابو ها ده هسي هوري ما garanaysaa qaraamiga ayuun baan anigu iska jeclaa markii dambana sidaas baan fanka ku soo galay waan gartay macalinkayguna wuxuu ahaa maxamed faarax xirsi ma ka uu bukaayay ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo ninkaas aniga macalin kii ugu horeeyay leesana maxamed faarax buu ahaa ninkii soo gacan qabtay ee fankan iyo waxan bay keenay ee macalinkayga maxamed faarax xirsi buu ahaa markii ugu horeysay dhaxtimi fanaaniinta heestii ugu horeysay bahda lagu tijaabiyay heesi karto ateembadii iyo iskiilka lagu eego iyo codkaaga ma xasuustay waxay ruwaadi nafsiga jacayl waxa lahaa nin cabdi xabas la yiraahdo markii ugu dambeysay uu noolaayay waxay ahayd markaan taabudnaayay xidigaygu toosnaa inkastoon taraaroon ka tallaabay xeerkii adduunyada u taagnaa sawtan lay taftaafay layga gooyay toogtii aad tixraaci laydeen tolmaya intaasaa iigu filan tabaalo aan ku toobadkeene ii tudho jacayyahow igadaa tumaatida nafsiyowna taamkiyo hay celintaad iibtee ilaa taliya maantaba ruwaadaasaa igu horreysay heestana heesahaan kugu horreysay ruwaadan bay heestuna ku jirtay heeskuna uu ku jiray adiga iyo aniga maxamed faarax ayaa aktar iyo atrisha ka ahaa codkan saan dareemay maxamed faarax baa sameeyey codadka ruwaayadoo dhan maxamed faarax baa sameeyey waan gartay ruwaayadda yaa lahaa cabdi xabashin la yidhaah cabdi xabashi imisada bahayd waxay ahayd inamaa 72 markaan fanka soo galay bay ahayd markaad soo gashay 72 kooxdeed markaa ku beertay markii hore kooxdii guludayaasha waan gartay markii dambena waxaan ku beeray waa beri hargeysa heestii kugu horreysay caan noqotay dadku wada bartaane kuwa inkastoo heestan markaad qaadaysa ay caan tahayoo dee mala dhalinta damba maan garanayne hees aad fiican oo macaan ahayd bal hadda heestii ugu horreysay lagugu bartay heeskii igu horreeyeen ku soo baxay waxay ruwaayadii nin qasbaayo jacayl ma loo quuri karaa cabdi cali weyd baa lahaa waxayda doonidii jacayl haynalada waftay kusoo bed marka aniyo maxamed daare عاشقا عربكي ودمنا صار نيدنا وسيدا قلبنا كدالعو بلدا عامي عاشقا عربكي ودمنا صار نيدنا وسيدا قلبنا كدالعو dookhaygan kaa helay iyo kaagan iga daran wasla doonashayla dookhaygan kaa helay iyo kaagan iga daran wasla doonashayla doonidii jacaylka arraacay haynala dawaaftee kusuubood doonidii jacaylka arraacne haynala dawaaftee kusuubood dusheedaynu isku daawan doonaaye dusheedaynu isku daawan doonaaye doji caashaqa sida duunyadoo kale deegaanta meeshale isba wuu ku taraara ilaa doji caashaqa sida duunyadoo kale deegaanta meeshale isba wuu ku taraara
للعاشقة سيد الشيخ علمي قدقي تتكوق حديثه وشك أخر حيسها بلدة للعاشقة سيد الشيخ علمي قدقي تتكوق حديثه وشك أخر حيسها أنا أنكو دير صدو أدنى صوت ماشات دقنان عياري أنا أنكو دير صدو أدنى صوت ماشات دقنان عياري دون دي جعلك الرعني هاي نرى دوابتي وسوبود دون دي جعلك الرعني هاي نرى دوابتي وسوبود وشيدي وداون دوناي وشيدي وداون دوناي ابن عاشقة كل هالدنيا للدوين نفتوه الدرياي تبن دابيادي عند ابن عاشقة كل هالدنيا للدوين نفتوه الدرياي تبن دابيادي جعلك الراني هاي نرى دوابتي وسوبود شيدين اسكتا وانتوناي تشيدين اسكتا وانتوناي guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii fanka iyo suugaantana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan dhammaantiin idku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramburiyo heed ahelo iyo cayaar gabayahay badiyo hadhaale baanu hindisnaa